الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدن مدحوينك حجين مدن عياش وزير هذا مرت شرفته مرويني مدن عيال وانا وذا السلامية. runtii munaasabadan maanta aynu isugu nimid iyo buugan lagu daahfuray inoo xambaarsan war wanaagsan ee Somaliland inaan goobjoog u ahaado aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. hadal wayntii wasiirku yiri wasiiradii iga horeeyay yiraahdeen waxa aan u xoojinayaa qiimaha buugaas uu leeyahay. waayo waxay Soomaalidu ku mahmaahdaa haddii lagu sheegana waa la is sheelaa haddii lagu sheelana waa la is sheegaa in badan baa Somaliland la sheelay macluumaadka buugan xambaarsan yahay sidii horeba loogu sheegay waxa loo baahan yahay in meel walba oo danta Somaliland wax kaga xidhan yihiin cidii Somaliland dan ay kaga jirto ama ku tala jirta inay ama xiriir la soo yeelato waa buug ay ka helayso macluumaad ku filan kalsoonina ku beeraya inuu yahay dalkan dal jira wuxuu ka marxaati furayaa horumarka Somaliland gaadhay 30 sanadood iyo jiritaankeenii ka horeeyay istiqlaalkeena ka horeeyay inaynaan ahayn dal yar oo dal kale oo weyn ka soo go'ay inaynaan ahayn xubin ka tirsan xabad weyn ama dal weyn oo kale inaynu nahay dal weyn oo isagu jira kana dal weyn dalal badan oo kale dalka ina sheegta ee dhul Somaliland leedahay sheegtana ka marxaati furaysa inay damacuun dhinacooda ka soo galay Somaliland uu yahay dal jira marka waa duco waa ammaan waa farxad waa waxaynu ku faani karro waa waxaynu Somaliland mas'uuliyad naga wada saaran tahay inaynu fidino oo dadka la qaybsano adduunka la qaybsano wasaaradda arrimaha dibadda iyo xukuumadda Somaliland ee samaysay ee waqti u hurtay way amaanan tahay waajib weyn oo lagu lahaa bay ka soo baxeen waana wax sida wasiirku u sheegay u baahan in marba la joogteeyo la dhamaystiro isbedelada la geliyo marka waa duco iyo ammaan iyo mahadnaq waxa aan soo jeedinayaa iyo Somaliland quruxda ay leedahay iyo horumarka ay gaadhay inuu adduunka la qaybsano wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.